muuqaalkan isaga ah waxaan kugula wadaagi doonaa 4 cashar oo waaweyn oo aan isleeyahay si fiican ayaad u baratay sanadkan aynu ku jirnay 2022 waa marka koobaad qodobka ugu horeeya waa qodobka muhiimadda ay leedahay barakadu waxaynu naqaanaa ama loo yaqaan sideedaba in shay aad haysato wanaagiisa iyo anfaciisa iyo waxtarkiisa lagu farbadiyo dadka intooda badan hadii aad weydiiso su'aashan iyada yama dooran lahayd wax farabadan iyo wax barakale waxa suurtagal ah intooda badan inay doortaan wax farabadan laakiin macnaha iyo waxtarka iyo faa'iidada barakada ay ku jiraan in waqtigaaga lagu barakeeyo in hadii aad shaqeyso waxaad ku shaqeynaysid lagu barakeeyo iyo lacagta helaysid maalkaaga hadaad wax baratid aqoontaada lagu barakeeyo ehelkaaga qoyskaaga lagu barakeeyo asxaabtaada dad wanaagsan ay noqdaan wax allaale wax kastood qabato oo talada ummadaada bulshadaada wax ku tar ilaahay baraka uu raaciya waa wax aad iyo aad weyn marka waxaan ku bartay sanadkan imka hadda lagu jiro iyo in badan oo ka horeysay laakiin si fiican aan u xaqiiqsaday in barakadu ay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan ay tahay qofka muslimkii inuu raadiyo kuna dadaalo sidii uu heli lahaa waxyaalaha ka saacidaya waxa kamid ah barakada in wax kastood qabanaysid ilaahay baraka u galiyo akhrinta quraanka adkaarta iyo joogtayntooda ducada faraha badan leh waalidka iyo samafalkooda bixinta inaad wax ka bixiso wixii aad doonaysid inuu ilaahay ku barakeeyo hadaad doonayso xoolo iyo hanti baraka leh wuxuu lacagta wax ka bixi hadaad doonayso inuu ilaahay aqoonta ku barakeeyo aqoontaada wax ka bixi marka bixinta lafteeduna saameyn weyn bay ku leedahay sidii aad barako heli lahayd waxaan oran karaa barakadu waa casharada ugu waaweyn ee aan bartay inay muhiim tahay inaad ka daba cararto sidii aad barako heli lahayd laba casharka labaadi waxa uu yahay waqtiga iyo habka iyo degdegga oo u socdo ee faraha badan leh waxaan arkaynaa sanadkii shalay tola bilaabmay ee aad xasuusan kartid wixii aad maalintii koobaad aad sameeysay sida aad shalay u xasuusanayso kala aad u xasuusanaysay maanta waa dhamaaday 365 maalmood wax ku dhow ayaa tagay hadii sanadkani uu tagay macnaheedu waxa weeye sidoo sanadkaasi waa cararayo ay cumrigaagu soconaya waxaba suurtagal ah in 10 sano hadda dib aad u fiiriso inay shalay oo kale ay kulahayd marka waxa muhiim ah qofka muslimka cumrigaagu maadaama degdeg ay dhaqsaha u soconayo inaad sida ugu wanaagsan aad uga faa'iideysato bal nin odaya ama dadka waaweyn waxaad weydiisaa iga waran dhalinyarnimadaadii da'daadii aad yarayd iga waran wuxuu waliba uu kugu waramayaa in ay shalay toolo oo kale ay ahayd waqti badan waxaad moodaa in aanan soo dhaafinba marka shalay toolo ahayd laakiin maanta waxa ka soo wareegay 50 sano iyo wax ka badan بمعنى sida uu qofku u dareemin bay arintaas ku tusaysaa socodka waqtiga waxa laga baahan yahay inta aad yar tahay iyo inta aad qof dhalinyar ah tahay iyo inta aad wali aad nooshay oo aad muuqaalkan aad daawan kartid inaad cimrigaaga aad maal gashato waxaad ku maal gashanaysaa cibaado suuban oo fiican oo adiga iyo ilaahay xidhiidhka idin dhaxeeyay wanaajinayso waxaad ku maal gashan kartaa cilmi anfac leh oo wax ku tara adduunyadaadana wax ku tara aakhirada dambana wax ku kordhiya waxa aad ku maal gashanaysaa in waxa weeye aad dacwada iyo amalka saalixa ah ee muslimiinta oo dhan wax taraya inaad ku dadaasho waxaad ku maalgashanaysaa in dadkaaga aad wax tarto oo aad isku daydo inaad mashruuc wanaagsan iyo wax hadhow markaad qabriga aad gasho wax ku soo tara inaad hadda shaqaysato inta aad jaaniska aad haysatid waxaan u gudbayaa casharka saddexaad aan isleeyahay waa muhiim casharkaasi wuxuu yahay awoodda adkaartu ay leedahay adkaartu waa xuska qofku uu xusayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala adkaartu waxay leedahay noocyo iyo qaabab kala duwan oo waxa jirta adkaarta subaxii iyo adkaartii habeenka waxa jirta adkaar la akhriyo waqtiyo cayiman markaad suuliga galaysid markaad cuntada cunaysid markaad ka farxalatid markaad seexanaysid waxa jirta adkaar furan oo mar walba aad sameyn kartid subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah astaghfirullah adkaartaasi dhinac waan arkaynaa ajr iyo waxay leeyahay xasanaad fara badan laakiin faa'iidooyin inta ka fara badan ayaa aad ka helaysaa oo ay ka matahay sidoo ilaahay quraankiisa ku sheegayba in qalbigaagu ku dagaay in aad dareemaysid xasilooni mar wal oo adkaartaadu ay fara badato xuska ilaahay aad xusaysaana ay waxa weeye ay badan tahay sidoo kale hadii aad doonayso arin iyo hammi iyo wax ku haysta in ilaahay ka fujiyo adkaarta xusuusno hadii aad doonayso nolol qabo oo raaxo leh oo aad ku waxa weeye raaxaysatid adkaarta ilaali oo joogtee hadii aad doonayso in himila aad rabto inuu ilaahay uu ku gaarsiyo adkaarta joogtee marka waxyaalaha aan sida wanaagsan aan u bartay waxa kamid ah in dikrigu yahay furaha iyo miftaaxa farajka in wax allaale wixii aad ku furtaba inuu ilaahay ku fudaydinayo kuuna hirgelinayo aad kuna guuleysanaysid qodobka ugu dambeeya ee muhiimka ah ee sida wanaagsan aan u bartay barashadaas soo noqonaysa waxaan arkay waxaan akhriyay intaba waxa weey noqonaysa qodobkani farxadu oo waxyaalaha qof waliba
inta uu yar yahay iyo markuu weynaado iyo intuu nool yahay oo dhan uu jecel yahay inuu qofku ku noolaado miyaad garanaysaa qof jecel inuu murugo ku noolaado waxyaalaha yani sida cuntada aad u doonaysid iyo sharaabka iyo hurdadu noloshaada oo ay u baahan tahay hase haddii dadku intooda badan meelo kale oo qaldan buu qofku ka raadiyaa waxyaalahan bartay waxa kamid ah inay farxadu tahay xaalad maskaxeed oo xaaladda aad ku jirta aanay saameyn ku lahayn heerka farxadaada qof baad arkaysaa faqiir ah laakiin nolol habiya ku jira waxaad arkaysaa mid noloshii u sarreysay ku jira magac iyo mansab iyo maal intaba haysta hase haddii farxaddu ay ka maqantay oo aan haba yaraatee dhadhaminayn wejigiisa madowga haystana aad ka arkayso in walbahaar iyo farxad la-aan ay hayso sidaa awgeed waxyaalahan bartay waxaa kamid ah iyaduna inay farxaddu ay ku jirto waxyaalaha yaryar ee khafiifka ah ee qofku ku raaxaysanayo koob shaahad cabtid asxaab wanaagsan aad la sheekaysanaysid waalidka oo aad la joogtid allahumma salli ala muhammad qoys wanaagsan oori fiican caruurtaada la ciyaartid buug wanaagsan oo akhrisato waxyaalaha yar ee fudud ee dadka badan aanay ka raadin inay farxaddu ku jirtana waan arko dareemay sida awgeed farxaddu maaha meel la higsado maaha safar meel loo safro loo hayaamo maaha farxaddu waa xaalad ay tahay inaad mar walba la noolaatid iska ilaali inaad naftaada iyo noloshaada aad ka dhigto sidii qof safrayo u safrayo halkay farxaddu taalo bimacna markaan weynaado markaan lacag helo markaan jaamacad ka baxo markaan reer yeesho markaan sida aan sameeyo marka aan dhoofo ayaa noloshiigu macaaneed ee farxadda lahayd aan dareemay iska ilaali inaad sidaa u fikirto noloshaada maalinlaha ah farxaddu ha ku yeelato saami ha ku yeelato waxa weeye joog ha ku yeelato waxa weeye presence ama waxa weeye xuduur ha ku yeelato si ogeedkaasina waa cashar kale oo muhiim ah oo kuu sheegaya inay farxaddu aanay kaa fogeyn hoostaada ay taagan tahay laakiin ay u baahan tahay inaad si fiican u eegto halkaa waxaan kugu soo gudbiyay 4 cashar oo aniga wax weyn aan ka fahmay kana bartay sanadkan hadda lagu jiro. Salaamu calaykum.